qisadii habarqaba Nabruud wuxuu ahaa nin ku kibra dhulka, waana mid ka mid ah 4 boqor ee dhulka xukumay kadib duufaantii Nabi Nuux alayhi salaatu wasalaam. Nabruud wuxuu ahaa keligii madax adag oo macangag ah, wuxuu ahaa sixroole, faaliye ama faalilow. Waxaa la sheegay inuu ahaa qofka ugu horreeyay dadka salbiya ee geed ka soo lula. Ninka ugu horreeyay ee hees loo qaado waa la isku khilaafay magaciisa. Taariikhyahanada muslimiintu waxay sheegeen inuu ahaa Namruud binu Kancaan binu Koosh binu Saam binu Nuux. Hase ahaatee, Yuhuudda ayaa iyaguna ku tilmaamay inuu ahaa Namruud binu Koosh binu Xaam binu Nuux. Waxaa kale oo la yidhi waa Daxaak ama Biyoraasib. Ilaah baa og saxda ah. Nabruud waa boqorkii saaxiibada mushrikiinta ee caabuda xidigaha iyo meerayaasha. Waxaa kale lagu sheegay inuu dhisay sartii dheereed ee Baabiil oo ka mid ah 7 mucjiso ee caalamkii qadiimiga ahaa. Waxaa Imaamu Dabari taariikhdiisa ku sheegay in Nabruud ku riyooday riyo ka argagixisay, kadibna loogu fasiray inuu dhalan doono wiil burburinaya boqortooyadiisa. Dabadeedna wuxuu go'aan ku gaadhay inuu laayo ubadkii reer Baabiil si aan wiilkaas u dhalan. Wiilkaasina wuxuu ahaa Nebi Ibraahim calayhi salaatu wasalaam. Si kastaba ha ahaatee, Nebi Ibraahim wuu dhashay, waanu barbaaray, waanu ka badbaaday xasuuqii habarqaba Nabruud. Masaskii garbaha ka saarnaa Nabruud, Ibnu Athiir Ilaahay u naxariistay, wuxuu taariikhdiisa ku sheegay in Daxaak ama Nabruud garbihiis ay lusheen 2 mas madaxyadooda, kuwaas oo markay gaajoodaan loo dili jiray 2 nin, kadibna maskaxdooda loogu duugi jiray masaska. Taasina waxay keentay inuu dad badan laayo, lagana cabsado oo magaciisu argagax noqdo. Doodii Nabruud iyo Nebi Ibraahim calayhi salaatu wasalaam. Waxaa Qur'aanka Ilaahay ku xusay dood dhex martay Nebi Ibraahim iyo gaalkii sheegtay rabbinimo ee boqorka ahaa. Guud ahaan, mufasiriinta Qur'aanka fasirta waxay ku tibaaxeen in ninkaasi yahay Nabruud. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. كورنكii la dooday Ibraahim inuu Ilaahay siiyo boqortooyada, markii Ibraahim yidhi rabbiga waa kan wax nooleeya waxna dilaa, ee uu yidhi isaguna anigu waxbaan nooleeya waanan dilaa. Ibraahim wuxuu yidhi Ilaahay wuxuu qorraxda ka keenaa dhinaca bari ee ka keena dhinaca galbeed, waanu weeraray kii gaaloobay. Ilaahayna ma hanuuniyo qoom dhaalimiina. Sida culammadu ku fasireen, wuxuu Nabruud xabsiga ka soo saaray 2 nin oo ku xukunaa dil, kadibna mid ayuu sii daayay, kii kalena wuu dilay. Sidaana wuxuu ku sheegtay inuu waxna dilo waxna nooleeyo, iyadoo ay muuqato in Nabruud dooda marinkeeda ka leexday. Haddana Nebi Ibraahim calayhi salaatu wasalaam wuxuu keenay xujo cad oo aanu awood u lahayn in Nabruud ka murmo. Wuxuuna yidhi rabbigay wuxuu qorraxda ka soo saaray bari ee ka soo bixi galbeed. Taasi waxay wereerisay Nabruud, sidaasna waa ku fashilmay. Doodii markii lagaga adkaaday Nabruud iyo tolkiiba, waxay go'aansadeen inay dab ku tuuraan Nebi Ibraahim, balse Ilaaha awoodda sare leh ayaa badbaadiyey. Dabkiina ka yeelay qabow nabadgelyo ah. Shimbirkii gorgorka iyo Nabruud. Ibnu Athiir wuxuu sheegay in Nabruud si uu u arko Ilaaha sareeya ayuu rabbiisay shimbiro gorgora, isagoo siin jiray raashin iyo khamri, kadib wuu gaajaysiiyey. Wuxuuna ku xidhay buudhi sanduuq oo kale ah, wuxuuna nin u dhiibay waran dheer oo hilib saaran yahay. Wuxuuna amray inuu buudhiga fuulo, hilibkana sare u qaado. Shimbirihii markay arkeen hilibkii ayay la duuleen Nabruud ilaa uu arkay buurihii oo qarsoomay. Kadib wuxuu gaadhay meel uu arki waayey hoostiisa iyo dushiisaba, wuxuuna amray in warankii hoos loo dhigo. Kadibna shimbirihii waxay soo aadeen dhulka. Nabruud waxa u suurtoobi weyday inuu arko rabbiga koreeya ee sarreynta iska leh. Wuxuuna soo noqday isagoo indhuhu gamax yihiin. Sartii dheereed ee Baabiil. Nabruud wuxuu dhisay sar dheer oo lagu tiriyay inay ka mid tahay 7 mucjiso ee caalamka qadiimiga ahaa. Sartaasi waxaa dhisaya dad kala duwan oo meelo kala durugsan laga keenay. Hase ahaatee, sartii way duntay oo dhulgariir ayaa hoosta kaga yimid. Waxaa culamo badan ku fasireen aayaddan قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم
وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ويملكن دغر kuwii ka horeeyay markaasuu Ilaahay kaga yimid guryahoodii xagga asaaska waxaana duusan qaabkii korkooda cadaabkiina wuxuu kaga yimid meel aanay dareemin sarta dheer markay duntay ayaa la sheegay in luuqadii dadku kala duwanaadeen maadaama dadka argagaxeen masiirka habarqaba Nabruud waxa uu yimid malag kaasoo 4 jeer ugu yeeray inuu islaamo markuu diiday ayuu ku yidhi soo kaxayso ciidamadaada waxaan soo kaxaysanaya ciidankayga kolkii Nabruud iyo ciidankiisa soo baxeen ayaa Ilaahay furay albaabkii kaneecada waxayna cuntay ciidamadii Nabruud iyadoo jaqday dhiigoodii kana yeeshay lafo baaliyoobay habarqaba Nabruud waxaa sanka ka gashay xabad kaneeco ah taasoo fadhiisatay maskaxdiisa